بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنو قدوميها حزبي midnimada ummadda Soomaaliyeed magaceygana Dr. Cali Cumar Bati waxaan halkan u fadhinaa oo isugu nimid anagoo golihii dhexe golihii fulinta oo wada dhannahay in aan soo saarno bayaan ama wargelin ku saabsan dib u dhac ku yimid xafladii sanad guurada 15 Abriil qaban jiray dood dheer falanqeyn kadib waxaan soo saarnay bayaan wargelin aniga oo ku hadlaya magaca xisbiga SNU waxaan dhammaan golaha dhexe iyo golaha fulinta iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed aan ku wargelinaynaa in ay inoo suurto geli weyday in aan qabano sanad guuradii xafladda SNU oo ku beegan 15 Abriil sababtoo xafladda dib ugu dhignay ay tahay cudurka ka jira dalka aawadeed annaga oo raacayna talooyinka dowladda oo in la ilaaliyo isku imaanshaha iyo kulamada waxaan alle ka baryaynaa in alle naga dulqaado cudurkan dalka ka jira ee uu inoogu bedelo caafimaad iyo horumar wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله aniga ku hadlaayo magaca afhayeenka xisbiga midnimada ummadda Soomaaliyeed kana wakiil sababo jira awgeed isagoo dalka uga maqan waxaa ma artay isha soo gudoomiyaha sheegayba noo suuragali weysay in aynu qabanno xafladii sanad guuradii xisbiga oo ku beegnayd 15 Abriil oo ku beegnayd xafladii oo xisbiga way noo suuragali weysay sida darteed waxaa laga maarmaan noqotay in aan ma artay xubnaha xisbiga labadiisa gole iyo taageerayaashiisa aan ku wargelinay iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeedba in ay suuragali weysay xafladii xisbiga duruufaha dalka ka jira awgeed saad ogtihiinba dalka waxaa saameeyey cudurkan adduunkiiba saameeyey oo viruska corona loo yaqaano sidaa darteed marka si aan ma artay annagana u ilaalino dadka mas-uuliyadda ay naga saaran tahay badqabkooda waa ma artay ii sheeg darteed aan u baatinay sanad guuradii xisbiga ee sanadkan waa idinka raaligelinaynaa insha allah waana qaban doonaa waqtigaan qabanaynana dib ayaan idinkaga soo sheegi doonaa dadkana waxaan ugu baaqaynaa in ay qaataan talooyinka iyo wacyigelinta wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya iyo laamaha ma artay ii sheeg qaabilsan dadka wacyigelintooda marka dadka waxaan ugu baaqaynaa inay ma artay qaataan talooyinka iyo wacyigelinada ma artay ii sheeg wasaaradda caafimaadka iyo ma artay guddiyada loo xil saaray inay dadka ka wacyigeliyaan faafidda cudurkan waa Luqmaan Cali Macow oo wakiil ka ahaa afhayeenka xisbiga midnimada ummadda Soomaaliyeed Professor Xildhibaan Khalid Macow Cabdulqaadir. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ilaahay baa mahad iska leh oo halkan ku kulannay oo barnaamijkan maanta noo suurtageliyey runtii waxa waaye dhibaatadan dhacday dhibaato waxay ahayd oo ummadda dhan saameysay qof kasta saameysay runtiina waxa waaye waxaa hadda loo fadhiyey waxay ahayd 15 oo bishan oo ahayd maalintii maaragtay ilaahay ku run yahay oo maaragtay sanad guuridii xisbigeen runtii taas waa noo suurtagal weysay sababta inuu suurtagal weysayna wax kale maaha dhibaatadan jirta oo maaragtay oo Soomaaliya oo dhan saameysay qof kasta saameeyay ilaa caalamka saameysay marka insha Allah taala wax waaye waxaan rajaynaynaa in waqtiga ilaahay yiraahdo oo munaasab noqdo in maaragtay 15 bishii
يعني وقت قاعد لو أبى الجله أيان مرت إلهي كبريان كبرينا ميدان كلا حواي حسبي كان هو أسوي شقيه حتى أنا واشقين دونا وأنا شقينيا إن شاء الله تعالى وعواي وركنا كل درا مجعله ركبضا أو حاجري مارتي أو برنامج إذا حسبي مارتي وآد وهلنا خاركودنا مقيه marka insha Allah taala xawaay waa soo gabagabeynaya in barnaamijkan maaragtay inuu hirgalo oo maaragtay uu si fiican u hirgalo insha Allah taala. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.